madaxweynaha federaalka Soomaaliya wuxuu go'aamiyey in ergo uu diro labada madaxweyne magaalada Muqdisho iyadoo shirka wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka dalka ee ka socda uu galay maalintii afraad ayaa madaxdu waxay ka arrinsadeen sidii kulamadan ay uga soo qayb gali lahaayeen madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo iyagu wali shirkan ka maqan wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Ismaan Abuukar Dubbe oo ka warbixiyay kulankan ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ergo madaxweyneyaal u diray mas'uuliyiinta shirka ka maqan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu joognaa Afisiyoni Center waxa socda shirkii golaha wada tashiga qaranka oo ka socda xarunta ciidanka cirka Afisiyoni saaka waa maanta waa maalin Khamiisa waxa shirku galay maalintii afraad oo sida la wada socotaan shirku wuxuu soo bilaabmay Isniin talaadana uu socday Arbaco shalahaydna uu socday maanta oo Khamiis ahaydna shirkii madaxda wada tashiga qaranka uu socda shirka waxa gudoominaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa qayb ka ah oo shirka fadhiya ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamuud Maxamed Cumar Finish waxa kale oo jooga gudidii farsamada ee arrimaha siyaasadda waxa kale oo jooga gudidii amniga ee ka shaqeynaysa amniga doorashada shirka waxa jooga bahdii warbaahinta looma kala maqna shirka sidii aad la wada socoteen wali waxaan ka soo qayb galin madaxweynayaasha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe shirku maanta wuxuu galay maalintii afraad ajendihiisuna wuxuu ahaa shir albaabadu u xiran yihiin oo ay madaxdu kaga wada hadleen sababta ay uga soo qayb gali waayeen labada madaxweyne ee kale shirka maalintii afraad halkan ka socda ajendaha shirku maanta wuxuu ahaa arintaas aad bay madaxdu arintaa u lafagureen dhinacyo badan uga eegeen markii la isla rogrogay aad loo qiimeeyay xaaladda si shirku uu u soo gabagaboobo oo natiijadiisu loo gaaro waxa laga maarmaan noqotay in laga wada hadlo sababaha ay labada madaxweyne ay u maqan yihiin shirkan oo saaka waqti hore bilaabmay waliba waxa cajiib ahayd madaxweynuhu inuu ugu soo horeeyay saaka oo 7 subaxnimo uu shirka yimi taasoo muujinaysa sida ay uga go'an tahay madaxda dawladda federaalka in shirkani naajaxo guuleysto iyadoo loo hirgelinayo heshiiskii 17 Sebtembar iyo kii ka dambeeyay 16 Febraayo si doorasho loo aado dalkan ay uga dhacdo doorasho hufan oo nabada oo xasiloon shirka kadib waxa la isla gartay inay muhiim tahay markii la helay maxsuulka caqabadaha ay u iman waayeen labada madaxweynaha federaalka Soomaaliya wuxuu go'aamiyey in ergo uu diro labada madaxweyne ergadaas oo ah madaxda maamul goboleedyada madaxweynuhu wuxuu u diray 3 madaxweyne oo uu hogaaminayo 3 madaxweyne oo ah Cali Guudlaawe Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Cabdicasiis Laftagareen 3 madaxweyne waxa ergahan loogu diray inay la soo hadlaan oo ay la soo kulmaan oo ay hoos u soo ogaadaan sababaha ay shirka 4 maalmood soconaya ay uga maqan yihiin si loo hirgeliyo hanaankii doorashada lagu heshiiyay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ay tawfiiq ku soo dhamaato oo ay ka soo qayb galaan shirka si dalkani uu doorasho u qabto shacabka Soomaaliyeed waxaan xukuumad ahaan rabnaa in ay nala wadaagaan oo nala qaataan samirka iyo dulqaadka samirku waa sadka siyaasiga samirku waa waxa lagu guuleysto dulqaadku waa waxa keena nabadda iyo xasiloonida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxay muujiyeen adkaysi dulqaad iyo samir intii shirku socday shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka rabnaa sidaas oo kale in iyaguna dulqaad deganaan iyo samir muujiyaan oo aanay oranin waxa intaas oo dhan loo sugayaa hore loogu socon waayay waxaan rabnaa doorasho fiican oo qurux badan oo nabada oo xasiloon inay noo qabsanto mar rabno in aynu ka tagno hal state mar rabno inaynu ka tagno hal muwaadin oo aynu qancin karno waxa socotay isqancintii sidaa darteed waxay noo rajaynayaa dhammaanteen guul iyo horumar aad iyo aad baa mahadsantihiin shirkuna uu sii socon doonaa sidii horeba u socday ilaa iyo inta aynu ka soo saarayno natiijada rasmiga ah in lagu ayido
lagu hirgeliyo heshiiskii 17 Sebtembar ee labada gol ansixiyeen iyo heshiiskii ka dambeeyay Baydhabo ee guddida farsamada. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.